بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha Oktoobar 2021 waxaan rabaa inaan qabto shir jaraa'id oo aan madlay maalin dhaweyto khamiistii la soo dhaafay 7 bisha oo aan xilkii wasiirka amniga galmudug iska casilay ballantaas oo aan qaaday anigoo fulinaya ayaan shirkan jaraa'id galabta qabtay shirka jaraa'id wuxuu daaran yahay xaaladda cakiran dowlad goboleedka galmudug ka jirta iyo gulufka colaadeed abaabulkiisu uu ka socdo caasimadda galmudug taasoo ahayd sababtii aan isku casilay inaan marka dadka reer galmudug iyo dadka Soomaaliyeedba u faahfaahiyo hadal kooban ayaan soo dhigay bartayda Facebook laakiin shirkan jaraa'id inaan ku faahfaahiyo arrintaas ayaan galabtay u qabtay ujeedadu waa taas waxaad ogtihiin marka oo rabaa inaan dib idin celiyo galmudug annagoo xildhibaano qarana oo waxaan ugu tagnay ayadoo xaalad adag ka jirto sanadkii hore bishii Maars 2020 ayaan gurmad ugu tagnay waxaan ku tilmaami karaa waxaan galmudug u tagnay inaysan ahayn xilal aan doonanay ama dan kale oo aan lahayn waxay ahayd gurmad xoogan waxaad ogtihiin in markaas laga soo faaruqay doorasho dadka reer galmudug ay salugsan yihiin qaabkii madaxda galmudug ay ku timid doorashadaas waxaa jiray madaxweynihii ka horeeyay Axmed Qorqor inuu gaalkacyo fadhiyay asagoo golo wasiiro iyo golo baarlamaanba halkaas ay lahayn waxaad kaloo la socotiin oo dadka Soomaaliyeed rabaa inaan la socodsiiyo xaaladda kale oo meesha ka jirta waxay ahayd inay qoyanayd markaan tagnay galmudug dhiigii iyo dhaawacii iyo burburkii ka dhashay dagaal lagu qaaday xaruntii Enji oo ay deganaayeen culimada ahlu sunna wal jamaa oo stakeholder xoogan ka ah galmudug waxaad ogtihiin galmudug marxaladaas inay ka jirtay isbaarooyin bilqan oo 62 isbaaro ahayd iyo dhibaatooyin kale oo tiro badan oo dadku ay salugsanaayeen doorashadii markaas dhacday in musharaxiintii galmudug madaxtinimada u tartamaysay markii koowaad taariikhda inay kulligood ka wada istaageen doorashadii ayagoo salugsan qaabka doorashadaas loo abaabulayay marka xaaladda noocaas ayaan ku tagnay gurmad ugu tagnay in dadka reer galmudug horumarkooda iyo baraarahooda iyo nabadooda laga shaqeeyo midnimadooda laga shaqeeyo waxaan ka shaqo galnay runtii laga bilaabo xaaf oo gaalkacyo fadhiyay ilamaa iyo dhibaatooyinkii oo dhan mid ayaan xalkoodii u dul istaagay arrintaas marka waxay keentay inaan gaarno stage isbaarooyinkii 62 ah inaan qaadno waliba anigu personal inaan dhabarka uga jabo xilligaas oo madaxweynaha galmudug uu asagu xamar iska joogay inaan dhabarka uga jabo faroomatabaan ilamaa iyo gaalkacyo wixii isbaaro taalay inaan ciidamadii xareyno oo aan maaragtay tababaro loo furo in ciidamadii maanta ay yihiin halkaas joogay kuwa dhufaysyada hore maaragtay wasil iyo baxda iyo ku jira arrintaasi marka runtii waxay dhashay dadka reer galmudugna waxay u fududeysay dhibaatooyinkii lagu gali jiray jidkaas ka dhici jiray in laga baaqsado waxaan kaloo runtii madaxweynaha markaan la fariisanay ay ahayd ballanteenu in galmudug laga xoreeyo inay noqoto maamul filla Soomaaliya kabqaad u ah oo maamul dadkeedu leeyihiin danaha dadkooda ka shaqeeya horumarkooda ka shaqeeya wax allaaliya wixii nabadooda iyo maslaxadooda ay ku jirto laakiin uusan noqon maamul fadhiida oo mar walbaba taabic u ah siyaasadda halkaas arrintaas waxaan ka fulinay ballantu sidii ahayd laakiin nasiib darro dadka Soomaaliyeed baa marqaati ka ah in madaxweynihii sanad iyo barkii la soo dhaafay uu ku mashquulsanaa madaxtooyada Soomaaliya sidii asagoo agaasimo kamid ah agaasimayaasheeda shaqooyinkaas markaan ka soo tagno waxaa runtii waajibka koowaad noo yaalay galmudug wuxuu ahaa dhulka galmudug 3 meelood meel al-shabaab baa haystay waxaan runtii al-shabaabkuna ay bilaabeen inay dagaalo ay ku soo qaadaan maaragtay galmudug
laga soo bilaabo Matabaan ilaa Hobyo xuduudda 300 kilomitir ku dhawaadka xuduuddaas waxaan u guda galnay inaan shabaab dirir xoogan ku qaadno oo runtii guulo waaweyn laga soo hooyay iyadoo aan kaashanayno dowladda federaalka iyo dowladaha iyo Puntland ay kaalmo iyaduna dhinaceeda naga siisay sidoo kale dowladda Mareykankuna iyaduna garab naga siisay al-shabaab waxaa laga warqabaa dagaalkaas in madaxweynuhu uu ku fiirsaday dadka reer Galmudug waliba dadka dagaalamayay waxaan dhihi karnaa 70% waxay ahaayeen culimada ahlu sunna wal jamaa ayay ahaayeen Galmudug ku nool kuwa ku nool mudug ama kuwa galgaduud qaybaheeda kala duwan ku nool waxay ku jiraan dhufaysyada hore ayay uga jiraan culimadaasi waxay ku jiraan dhufaysyada hore ayay dagaalka uga jiraan wax dhibaato ah ay lahaayeenna ma leh waliba mararka qaarkood waxay ka xoog badnaayeen oo commitmentiga xaggeeda iyo ballamaha uga fiican yihiin iyo dagaalkaba ciidamada caadiga ah tababaran oo qaranka al-shabaab dhulkaas dheer bay ku soo siqeen laakiin alxamdulillah waxa weeye waxaan u dhignay difaacyo adag waxaa ugu darnaa dagaalkii u dambeeyay oo dhibaatada iyo khasaaraha badan aan ku gaarsiinay koonfurta mudug ka socday inaan weydiisanay madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha federaalka laftiis inuu noo soo diro ciidamo dhammaystira si loo gaaro xarreere ciidamo dhammaystira dagaalkaas laakiin nasiib darro waxaan sugaynay ciidamadaas waxaa la soo dejiyay ciidamadii laftoodii laakiin hadafkoodu uusan ahayn inay shabaab la diriraan hadafkoodu uu noqday in la yiraahdo Gurceel iyo Bohol iyo dhulka ahlu sunna wal jamaa ciidamadoodu ay joogeen ayaan dirir iyo dagaal ku qaadaynaa arintaasi waxay noqotay arinta aan madaxweynaha Galmudug isku afgaarnay arinta aan isla fahmi weynay arinta aan dabcay inaan ka qabto laakiin uu ku adkaystay in dagaalka al-shabaab oo 20 kilomitir dhuusamareeb u jira al-shabaab oo laba magaalo oo waaweyn naga qabsaday oo magaalada Camaari iyo Bacadweyne in la arko madaxweynihii inuu arko oo yiraahdo waxa ka daran magaalada la yiraahdo Gurceel baa waxay ka daran tahay Bacadweyne iyo Camaara waxaan madaxweynaha ku yiri cadow ma auna qabsan waxa qabsaday dad partner noo ah oo waliba dirirta al-shabaab ku fiican oo sida aan u kaashano koonfurta mudug culimada ahlu sunna wal jamaa joogta iyo baxda culimada ahlu sunna wal jamaa joogta inaan kaashano halkan looga baahan yahay culimadan oo ay dagaalka qayb ka noqdaan oo ay ku barbar dagaalamaan ciidamadeena iyo ciidamada qarankaba taas nasiib darro waxay noqotay madaxweynihii inuu ku adkaysto oo ciidamo ka soo daabulo magaalada Muqdisho ciidamo Haramcad iyo Gorgor la kala yiraahdo la og yahay taariikhdooda iyo recordka dalkan u yaala inay kaliya aysan shabaab la dirireen ciidamadaas in loo sameystay in dadka Soomaaliyeed lagu caburiyo waana kuwii lagu caburiyay magaalada Muqdisho dadkeeda iyo kacdoonkii magaalada Muqdisho ka jiray bishii February iyo Maarso iyo Abriil ciidamada noocaas oo gado dhibaatooyinkii ka soo geysteen la og yahay ayuu madaxweynaheennii Axmed Qorqor go'aansaday asagoo wasaaraddiisa amniga oo anigu aan mas'uul ka ahaa la tashan inuu ku daabulo magaalada Dhuusamareeb ciidan kun gaaraya geeyo taliyihii muxuu ahaa gobolka Banaadir ee booliiska Cornel Farxaan Qaroole in halka la geeyo ayadoo la og yahay marka la geynayay magaalada Muqdisho qaraxyadu ay ka dhacayeen oo qarax weyn oo musiibo gaarsiiyay deegaamo xamarweyniga halkaas in maaragtay Farxaan Qaroole uu ka degay magaalada Dhuusamareeb si uu dagaalka lagu qaadayo ahlu sunna wal jamaa waxba galabsan oo uga qayb galo taasi ayaan daro weyn bay ahayd in ciidamada qaranka la marin habaabiyo oo hadafkoodii inta laga duwo Dhuusamareeb habeenkii khamiista oo la soo galay khamiistii hadeertan maalinkan iscasilayay habeenkeedii garoonka Dhuusamareeb khatar bay galiyeen inay qabsadaan geesay ka soo fariisteen laakiin dagaal ma dhicin ciidamadiina meeshaas u jirta 2 kilomitir baa lagu abaabulayaa oo aysan aadayn shabaab oo ay u socdaan ahlu sunna wal jamaa si nabadgelyo ah ku tagtay
dhulkoodii ayagu ay lahaayeen oo ay deganaa jireen oo aysan dhibna bulshadana ku hayn maamulkana dhib kuma hayaan arrintaas marka waxay ahayd arrinta runtii aan rabay inaan sida wanaagsan u sharaxo waxaa kuu soo hartay arrinta ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca madaxdooda macalin maxamuud ayaan wada hadalnay wuxuuna dhiibay oo ii dhiibay furaha xalka wuxuu yidhi madaxweynihii waan la soo xiriiray dad ergaa oo akhyaarana waa u soo diray wuuna ka diiday inuu furo wax wada hadal ah inuu nala furo annaguna dad diyaasbara ah oo qurba jooga ma nihin dad deegaanka u dhashay baan dad deegaanka u dhashay oo deegaankoodii raba si nabadgelya inay ugu noolaadaan nimankaas khawaarijta iyo al-shabaabna dirirtooda qayb ka noqono madaxweynuhu waa naga furi waayey sidaas awgeed adigu qaad guriceel waxaan ogolnahay maamulkii in la geeyo waxaan ogolnahay booliiskii iyo hay-adihii meeshii ay joogeen in la geeyo laakiin annagu dhulkeenna ma ahan dhulkeenna kama socono waa dhulkaan deganayn oo u dhalanay arrintaas madaxweynuhu wuxuu yidhi nimankaas waxaan dagaal ahayn oo runtii ay anfacayaan ama ay leeyihiin ma jirto way nagu soo noolaanayaan way nagu dhex korayaan way nagu dhex kobcayaan taasi marka waxay noqotay waxaan garan weynay galmudugtii horumarkeeda iyo nabaddeeda iyo shacabkeeda baraaraheeda aan ka shaqaynaynay in la yidhaahdo madaxweynihii dhammaayo loo igmaday ayaa diriir ku qaadaya dadkiisi laynaya barakicinaya arrintaasi waa ii cuntami weyday waxaan ku yidhi madaxweyne anaga ayaa xalkii ahlu sunnahaya anaa tegaya guriceel baabuurkayga qaadanaya tegi maysid aadina maysid nimankaas waa noo dirir madaxa wadaadadaasna waa keenayna haddii maaragtay ay u hirgasho arrintaas marka runtii arrin ayaan daraa bay noqotay in shabaab waxaan garan weynay dee in madaxweynaha galmudug uu shabaab leeyahay maaragtay uu leeyahay isbahaysi inuu shabaab sympathy u hayo inuu shabaab haddii magaalo ay noqoto 2 magaaloa laga shabaab qabsadeen hadday gaadiid noqoto 4 gaadiid ayaa dagaalkii gardarrada ahaa oo bohol lagu qaaday ay ku qabsadeen halkana 17 gaari baabuur ku dhow oo baabuurtii madaxtooyada ay ku jirtana camaaro lagu qaatay waxaan ku yidhi hadday baabuur noqoto al-shabaab baa qaadatay baabuurtii badnay hadday dhul noqoto dhulkii iyo magaalooyinkii 2 magaalo waaweyn bay haystaan maan xooggan u bedelna xagga ahlu sunna xalkeedana anigayda arrintaas runtii marka waxaan garan weynay iyo inay dhuusamareeb u degan yihiin 20 kilomitir oo 70 kilomitir loo socdo meel ah oo 20 kilomitir aan loo jeedin arrintaas marka shaki weyn ayay runtii annaga iyo wasaaradda amniga iyo dadka galmudug oo dhanba ay ku abuurtay waxaanan garan weynay dee projectigan lagu weerarayo lagu dhammaynayo dadka galmudug meesha uu ka socdo waxaan rabaa marka inaan gabagabadii ayaan joogaa dadka reer guriceel waxaan runtii dee xoog badan baa naga galay galmudug maamulka galmudugna inuu burburo ama dhibaato gaarto marnaba raalli kama nihin laakiin waxaan ognahay dhibaatada waxa wadaahay inay yihiin al-shabaab oo burburinaya waa ogeydeen guriceel galmudug ciidankeedii si nabadgelya ayay uga soo baxeen hal qof lagama dilin hadday cadow yihiin maxay u leyn waayeen maamulkii degmada intii sii badnaa wuu joogaa guriceel buu joogaa maxaabiis meesha taallay annaga maalinkii arbacadan ka keena qayb ka mid a oon dhuusamareeb u soo wareejin sidaasay cooperative u yihiin sidaasayna cadow u ahayn sidaasayna rabaan haddeertaan waxay ahayd 20 kilomitir 25 kilomitir baa shabaabku u jireen guriceel laakiin hadda markii ahlu sunna waljamaaca ay timid 60 kilomitir bay dib u noqdeen al-shabaab yacni faa'iidada ku jirtaa waxay tahay war madaxweyne adoo ciidan 2 kuna haysta 3 kuna haysta ayay caasimaddii 20 kilomitir u jiraan ahlu sunna markay guriceel timidna 40 kilomitir bay dib u noqdeen 20 bay awal u jireen 60 bay hadda u jiraan waad aragteen shalay baabuurtoodii oo socota oo dhul fog yacni operation iyo howlgal ka soo samaynaysa dadka noocaasa oo faa'iidada u leh galmudug oo qaybtoodii kale ay nala joogaan mudug in la yidhaahda qaybtan baan dagaal ku qaadaynaayo waa cadow runtii arrintaasi arrin qabata dadka reer galmudug iyo in dadka caqliga leh midna maaha projectigan projecti villa soomaaliya abaabulatay oo ay rabto inay doorashooyinka ku carqaladayso oo ciidamada meesha la geeyana marka lagu laayo ahlu sunna maahana shacabka marka lagu laayo dadka waxaa isaga qaldan
ciidanka meesha jooga gurceel jooga 250 ka mid ah waa ciidankii dowladda oo la leeyahay hadda ahlu sunna ay la safan yihiin laakiin dulmi ayay ka soo horjeesteen 42 sarkaal oo ka mid ah xoogga dalka oo ka mid ah booliiska iyo nabad sugidda ayaa ku sugan gurceel oo ciidankii qaranka Soomaaliyeed waa 250 ciidan ku dhow iyo saraakiishiis ayaa joogta gurceel marka runtii arrintaasi in la yiraahdo ciidankii kala laynaya shacabkii baa la barakicinaya arrintaasi arrin sax ma ahan waxaana rabaa inaan marka tala soo jeedin aan maaragtay arrinta doorashooyinka runtii waa arrin shaki weyn dhalin karta maxaa lagu soo aadiyay xilligan hadda la joogo in la yiraahdo ahlu sunna lala dirirayaa oo aan shabaab lala diririn waxaa la rabaa in dadka galmudug la isku diro oo fidno dhexdooda la dhaliyo oo dagaal aan joogsan oo sababa extension markii farmaajo uu hirgeli waayay extensionkii caadiga ah in la yiraahdo extension kale iyo muddo kororsi kale oo ah dalkan doorasho kama dhici karto oo galmudug baa saas hirshabeelle beledweyne la kala fadhiya meel hebel baa saas in inta la yiraahdo arrintaasi doorashada lagu carqadeeyo madaxweynaha waxaan kula taliyay warqadan u diray inuu qabto doorashadii labada xubnood oo aqalka sare ka harsanayd isla markaasna inuu qabto xubnihii kale oo golaha shacabkana inuu bilaabo waxaan rabaa inaan fariin yar u diro dad badan oo siyaasiyiin ayaa meelahan ku hadlay dadkaasi shalay badbaado qaran markay xamar joogtay waxay ahaayeen ama meelo kaleba ka hadlayba oo taageeray in dadka galmudug ay islaayaan oo ciidamada xamar ka tegay ay laayaan dadkaas shalay badbaado qaran markay joogtay waxay ahaayeen kuwii shiir kala taagnaa ama taagnaa muxuu ahaa marinaay ama taagnaa meeshaan la yiraahdo barmuuda xaafadan howlwadaag dadkii joogay oo ayidsanaa iyadoo dowladdu jirto hadda waxay leeyihiin nidaamkii dowladda ee galmudug baa lagu ciyaaraya laguma ciyaarayo nabadgelyada galmudugna faa'iida ugu jirta ahlu sunna inay joogto haddana waa laga dareema halkii isbuuc ama 10kii beri oo ay joogeen dadkii noocaas ahaa oo qadiyadaas aaminsanaa inay maanta inta kala wareegaan ay yiraahdaan ahlu sunno dagaal ha lagu qaado nidaamkii bay burburinaysaa shalay ayagu soo u ekaan maayaan nidaamkii jiray iyo madaxweynihii jiray ka soo horjeeda soo ma ekaayeen anu waa ayidsanaa haddana operationkan hadda socdana ma ayidsanin kaasna waa ayidsanaa marka runtii dad kala hadlaya oo dad musharaxiinihii ay ku jiraan dee musharax xil raba oo xil ku raba in dadka la barakiciyo dadka gurceel aniga waa kursiga gurceel tagay waa fahmi waaye ninka musharaxa inta mimbar taan oo kala soo istaaga waaqeeya maaragtay yiraahdo maaragtay waa in dagaal la qaada waa in ummadda la baabiya aniga kursiga gurceel galaan garan waaye waa jannadii al-shabaab ay naga raadinayeen oo kale buu la mid yahay kursigaas marka runtii dadka musharaxiintaana inay ka fiirsadaan inay dadka isku soo dhaweeyaan waa leeyihiin waa dad reer galmuduga inay u kala dabqaadaan waa leeyihiin laakiin inay fidnada socota ay ku sii shubaan bensiin oo sidaas ay u noqdaan maaragtay dad ka shaqeeyay fidno oo barakac ka shaqeeyay waxaan rabaa inaan gunaanadkii aan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka madaxweynihii waa aragnay inuu ciidamo daabulayo waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha kuma filna warqada soo saartay galmudug u soo istaag dib u heshiisiinta way ku ogol yihiin ahlu sunno dowladda galmudugna way ku ogoshahay u soo istaag inaad baajisid dhiigga meeshaas ka daadanaya taliyaha odawaa iyo xijaar waxaan leeyahay ninkii dhuumanayo dhabarkiisu muuqdo kalatiin inaad ciidamadii gorgor aad soo diri weyday odawaayo aad tiri ciidan ma hayo markaan shabaabka baacsanayn inaad maanta gurceel baan ku weerarayaa aad tiraahid oo halkan ka rartid dembi aakhira iyo adduunba aan ka harayn buu noqonaya waxaan kula talinayaa ciidankaas inuu ku wajaho dagaalka al-shabaab ama inuu soo ceshado oo xaafadahoodii iska joogaan xijaar waa la mid taliyihiisi gobolka banaadir baa jooga meeshaas ciidankii haramcad oo booliiska Soomaaliyeed hoos tagana asaguna halkaas u jooga ciidankaas waa in sidaas la mid ah ku leenahay shaqo qaran ma haya hadda dagaal sokeeye ayuu ka qayb galayaa ciidankaasi dad Soomaaliyeed oo nabada ayuu maaragtay baabi'inaya ciidankaas dib in loo soo cesho oo bartiisi lagu soo celiyo farxan qaroolana waxaan leeyahay
adeer eedahaadii hore waxba ha ku darsan horey baa eedo badanay kuu saarnaayeen hadda reer galmudug mid ah waxba kuu tari maysee dagaalkaas ha ka qaybgelin hana tegin meeshaas madaxweynaha galmudug waxaan leeyahay isaga runtii dadka reer Guriceel waxay ku soo dhaweeyeen fardo sanadkii hore 4 Juulaay ayuu booqasho ku wada tagnay fardihii Guriceel iyo dadkii Guriceel oo dhan waa aragteen sawirada meesha ugu dadka badan weeye galmudug magaalooyinkeeda waxaa loo soo dhaweeyay si gobonnimo ku jirto dadkii ku soo dhaweeyay maantay madaxweyne magaalo guryahoodii ma joogaan waxay joogaan dagaal adugu aad ku abaabulaysid cabsi ay ka qabaan bay baadiye u tageen waad ogtahay abaar baa dhulkaas ka jirta oon iyo maaragtay iyo dhibaatooyin bani aadamnimo xoogan baa dadkaas haya way bannaan baxayaan nabad bay ku bannaan baxayaan cadow lama joogo oo meeshaas meel cadow haysta maaha meel cid kasta oo maslaxad wada ay tegi karto waa meel dadka ahlu sunnada iyo madaxdeedu ay leeyihiin wada hadal baan rabnaa waa dadkaas looma quuri karo dagaal looma quuri karo dadkaas barakac dheeraado looma quuri karo dadkaas waxay ahayd inaad inta soo istaagtid bannaanka soo istaagtid aad tiraahid reer Guriceel dhulkooda ha yimaadaan arrinta jirtana nabad baan ku xalinaya waxaan rabaa inaan la taliyo dadka reer Guriceel lafteeda shalay shir kale markii la joogay waxaa la ilaalinayay Saadaq John oo dulmi laga filayay in lagu soo qabto Marinaay markii dagaalku ka socday waxaa la ilaalinayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore oo dulmi la rabay in lagu soo qabto ama lagu weeraro maantay sheekhiina ilaalsada waxba saas dhacay hadda ka hor baa ahlu sunnah gumaysay xaggay saas ka dhacday waxa sheekadu ma taagna annagu ahlu sunnah waa ogtihiin ahlu sunnah waan nahay laakiin ururka xubin kama yahay aniga laakiin ahlu sunnah dadka Soomaaliyeed dhuma ahlu sunnah laakiin ururkaas xubin kama yahay waliba sanadii barkii la soo dhaafay ninkii masaajidda hal furo lahaan u aha u xirna waa ogtiin meeshan kala joogan nin kale waxa uu hadal haynta badan yahay oo ahlu sunnah ku kacsan yahay xaq ku kacsan yahay lahaan u aha haddana maanta waxaan ayeysanahay waxaan ogahay markay gardaran yihiinna inaan dhihi karo meeshay ku gardaran yihiin waa gardarantii marka laga gardaran yahay inaan dhihi karo meeshaas waa loo gardaran waxaa weeye sheekhiina ilaalsada waxa loo socdo maahan ahlu sunnah waxaa weeye waa mashruuc kale ayaa galay mashruuc doorasho ayaa galay weerarka Guriceel lagu qaaday marka guud ahaan dadka reer galmudug oo dhanna xasiloonida iyo waxgaradkiinu ha soo baxaan hana ka shaqeeyaan Axmed Qoorqoor inkama awood badna galmudug hadduu maamulka u hayana dee talada reer galmudug buu yeelaya hadduu u hayo Fahad Yaasiin iyo Farmaajana dee waxay noqonaysaa siday uga socon weyday waxay rabeen xamar inay ku samaystaan bay sax xaqana uga soconayn oo isla dadkii laftiisiiba xagga jooga waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado ciidamada meesha la geeyay taliyaashooda dad xoolaha maahan dad wax garta waa adeer reyaalo waxaa fahantiin ciidan qaran baa tiin qaran baa la idin soo tababar hadday dhab tahay calanka Soomaaliya halka idinku dhagan koofidaad waxaad xambaarsantiin markaad hadlayseen dalkan difaacayna qarankan difaacayna waa leedahay haddaad ku dhimatid meeshaas dalna ma difaacaysid aakhira seeg iyo adduun seeg way taliyaha ku hogaamiya dagaalkaas ku raaca xadiis baa ah laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa qof caadiya ku adeeci maysid amarkiisa yeeli maysid haddii ay tahay ilaahay inaad ku caasisid inaad dadkaas ku duushid oo dishid oo naftooda adna aad ku dhimatid ayagana aad dishid runtii aakhira seeg iyo adduun seeg ka weyn ma jirto marka waxaan leenahay ehelooyinka wiilashooda meeshaas la geeyey ee ururada gorgor iyo haramcad iyo kuwa kale oo ciidanka kale oo xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12aad meesha jooga waxaan leenahay meeshaas dagaal ma jiro waad ogtiin dagaalku meeshu jiro ha ku raacinina nin kursi ilaalsanaya nin kursi nin qandaraas iyo mashruuc kale oo doorashada in lagu boobo raba marka soo dhaawacantiin oo soo dhimatiin waxa la rabaa ciidamada meesha la geeyay inay noqdaan kuwa doorashada lagu dhaco waxaan ku soo gunaanadayaa waxaan u taagnaan doonaa inaan hogaamiyo dhaqdhaqaaq nabadeed oo diida dagaalka galmudug laga wado waxaan leenahay madaxweynuhu warlord maahan sanduuq haba sidoo rababa ha ahaado ayaa lagu doortay xoog kuma qabsan dalkaas waxaan leenahay madaxweyne ka joog
madaxweyne qorqor dadkaas waa dadkii ku soo dhaweeyay dadka reer galmudug oo dhanna waa kuwii ku soo dhaweeyay doorashadana dan haddaa ka leedahay bannaanka iskeen aragtidaada ku aadan arrinta gurceelna ka hadal dad kale ha wakiilan dad kale ha wakiilan taleefanada xamar laga dirayo ama ciidanka xamar laga dirayna dalkaas kuu difaaci mayaan laakiin galmudug burburinteeda ayay noqon doonaan arrintaas waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado arrintaas anigu nabaddaan u taagnaan doonaa galmudugna insha allah waa ka shaqayn doonaa madaxweynuhuna hadduu dagaalka kusii adkaysto waxaan leenahay xildhibaanada baarlamaanka galmudug inay dowrkooda saxda ah ay qabsadaan ama madaxweynuhu hadduu ku fashilmay dadka reer galmudug inuu isku wado inuu iska casilo xilka sidaasaa u roon u waji roon xamar iskaga soo laabto sida hadda uu ku wado waxaa weeye shaqadii galmudugna ma wado shaqo asaga anfacaysa mustaqbalkiisana ma wado waxaan rabaa inaan in yar marka ku kabo shalay cadaado hoteelkiisa ayay ahayd hadday ahayd madaxweyne laga hor yimaado madaxweyne xaaf markii lagu kacay qandaraaska asagaaba afkiisa ka sheegaba qandaraaska burburinta madaxweynahaas iyo galmudug ninkii loo xil saartay axmed qorqor buu ahaa asaga afkiisa ka sheegay maalin wata waa aragtay media hoteelkiisaana xildhibaano iyo dad kaloo shacaba inta lagu kulmiyaa waxaa la yidhi xaaf waa lagu rid ma cid weerartaa jirtay ma jirin hadday ahlu sunna xitaa ka soo horjeedo maamulkiisa asaga hogaamintiisa hadday ka soo horjeedo inuu qanciyey leedahay inuu yidhaahdo waa weerarayaa male shalay asagaa intaani in la mida sameeyey madaxweynaha galmudug baad aragteen oo hore axmed ducaale asagoo dhahaya 2 sanaan diyaarad ku dulmaraya cadaado yay ahaayeen reer cadaado ma ahayn mashruucaas ma wadin mashruuca ninka waday isagu ah maanta inuu yidhaahdo wixii aan samaynayey haddii xitaa laygu sameeyo waa dembi oo dadkaan dilaya aniga markaan samaynayana waa ii bannaantay arrintaasi arrin saxa maahan runtii waxaan leeyahay ha soo noqo dagaal ka soo noqo dagaalka galmudug baad ku burburinaysaa dagaalka magaaladii ugu dadka badnayd baad ku burburinaysaa mana waxaasina kuma eka waxaan rabaa dadka reer galmudugna dhammaantood inay u istaagaan inay gacmaha madaxweynaha qabtaan madaxweynuheennu nin waalan walaalkiisa u fiyo baa la yidhi hadduu madaxweynihii naga waashay dadka reer galmudug oo dhan ma waalan asagay tahay inay intay u tagaan ay gacmaha qabtaan oo yidhaahdaan ka joog meeshaan dadka u sacabatumaya ee dhahaya waa dad badan baa ma ogtahay ninka waxaa la yidhi markii la luminayo ilaahay qofka markuu luminayo dad wuxuu ku xeeraa talada xun siiya ayuu ku wareejiyaa dad tala fiican siinaya dadka talada fiican siinaya oo dhan wuu dhibsadaa marka dadka u sacabatumayana waxaan leeyahay mustaqbal xumo ayay u sababayaan intaasay ahayd maanta intaan rabay inaan sheego